hadraawi waa mid ka mid ah tiirarka fanka Soomaalida waa abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo gabayada. Abwaanku waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sanadku markuu ahaa 1943. Waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah oo ka koobnaa 9 caruur ah, hal gabar iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi markii uu 10 jirsaday ayaa waxa uu aaday dalka Yimanta isagoo waqtiga laga bilaabo la noolaaday halkaas ayuu ka galay dugsi magacan lagu wada yaqaan uu ku caan baxay Hadraawina halkaas uu ka soo raacay waxa uu ku sheegay fiidiyoyadii laga duubay mid kamid ah inuu macalinkiisu ugu bixiyay Abu Hadradii markii la Soomaaliyeeyay in Hadraawi ay noqotay markii uu dugsiga ka baxay waxa uu macallin ka noqday mid kamid ah dugsiyada hoose ee dalka Yimanta markii ay Soomaalidu xornimada qaadatay gobolada waqooyi iyo koonfur ay midoobeen Hadraawi waxa uu ku soo laabtay dalkiisii waxa uu ka soo degay magaalada madaxda Muqdisho isagoo halkaas markale noloshiisii ka bilaabay wuxuu ku biiray jaamacadda ummadda uu ka qalin jabiyay isla mar ahaantaana uu ka noqday bare iyadoo ay barbar socotay shaqo xagga wasaaradda warfaafinta iyo raadiyo Muqdisho. Hadraawi oo noqday gabiya iyo heesa curiye caan ah oo bulshada dhexdeeda magac weyn ku leh ayaa ka soo horjeestay maamulkii militariga ahaa ee uu majaraha u hayay General Maxamed Ziyaad Barre. Heesa iyo gabayo ka soo horjeeda maamulkii dalka oo uu tiriyay darteed ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo waxaana lagu xiray magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 90 kiiloomitir dhankan koonfur galbeed ka jirta magaalada madaxda gobolka Baay ee Baydhabo wuxuuna xabsiga ku jiray muddo 5 sanadood laga bilaabo sanadkii 1973 ilaa iyo sanadku markii uu ahaa 1978 magaaladaas intii uu ku xirnaa Hadraawi waxa uu dib ugu noqday fankiisii iyo hadafku nolosha kala ahaa waxa Hadraawi yaab ah marka taariikhdiisa dib loo jaleeco sida wanaagsan ee hufnaantu ku jirto oo had walba waxyaabaha nolosha kala soo gudboonaada waxyaabaha nolosha ka qabsada oo si positive iskugu qanciyo Hadraawi markii uu xabsiga ka soo baxay waxa uu ka mid noqday maamulka akaademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Hadraawi waxa uu ku biiray ururkii halgandoonka ahaa ee Soomaaliyeed ee magaciisa marka la soo gaabiyo SNM loo yaqaanay isaga oo halka ka waday halgan ballaaran oo faneed oo ummadda lala hadlayay si toos ah oo looga digayay shilka qabiilku uu leeyahay dorsoocu uu leeyahay isqaadqaadka iyo maanka dadka oo la meeyo ay leeyihiin xilliyadii bilowga burburka iyo dagaaladii sokeeye Hadraawi wuxuu aaday Ingiriiska isagoo kadibna safar ku soo maray inta badan wadanada Yurub iyo Mareykanba wuxuuna ka qayb galay xaflado faneed lagu dhigay wadamadaas suugaanta Hadraawi waxa aad u diraaseeyay Ingiriiska dalka Ingiriiska rag badan oo fanka yaqaan macallimiin ah 1999 Hadraawi wuxuu ku soo laabtay Hargeysa markii uu ku soo laabtayna fankiisii buu halkii ka sii waday heesaha ugu caansan ee lagu xasuusan doono abwaan Hadraawi waxa kamid ah heeskii beledweyn ee uu qaaday fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Xasan Aadan Samatar iyo heeskii hooyo uu qaaday Allah u naxariistay fanaankii lagu magacaabay boqorka codka Soomaaliyeed Maxamed Saleemaan Tubeec iyo heeskii jacayl dhiigma lagu qoray ee ay iyadna qaaday Allah u naxariistay boqoradii codka Xaliima Khaliif Cumar oo loo yaqaanay Magool Suleekha oo uu qaaday Allah u naxariistay fanaankii Maxamed Nuur Griig iyo kuwa kale oo badan gabayadiisa waxa kamid ah gabaygii gudgude gabaygii daalalay gabaygii weynaa ee mucjisada lahaa ee 800 ee beed ka koobnaa ee dabahuwan ee uu aadka ugaga faaloonayay nolosha bini'aadamku waxa uu ku soo kordhin karo Afrikadu xaaladda ay taagan tahay noloshiisa isaga waxa iska bedelay iyo isla mar ahaantaana xalka uu adduunka uu hayo ama uu Soomaalida uu sido Hadraawi waxa laga xusi karaa noloshiisa in uu Hadraawi yahay nin cilmigan adduunka maanta lagu maareynayo waxyaabo badan ku soo biiriyay Hadraawi waxa uu aad uga faalooday shakhsiyadda dictatorka oo maansooyin badan uu ka tiriyay Hadraawi waxa uu aad uga faalooday faqriga waxa kale oo Hadraawi lagu xasuusan doonaa doorka weyn uu ka ciyaaray silsiladii Siinley ee ay ka qayb ka haayeen fanaaniintii waaweyneed abwaaniintii waaweynaa ee uu ka mid ka ahaa Cabdi Qays Hadraawi noloshiisa oo dhani waa nolol faneed Hadraawi waa nin hufnaanta ku caan baxay waa nin fankiisu marnaba uu dhutiyeyn Hadraawi waa nin mar kastaba Afrikada la hadlayay Soomaalida si gaar ah u la hadlayay tusayay in diinta loo adeegsan karayo si loo adoomiyo Afrikaanimada isaga oo aaminsan ayuu haddana mar walba ku boogaadinayay in ay dadku ku fara adkaadaan diintooda dhaqankooda iyo waxyaabihii saxsanaa ay ka dhaxleen awooyaashood Hadraawi waxa uu yahay hal abuur la oran
oran karo waa buug furan oo qof kasta oo bini'aadanka kamid ah uu iska dhex daawan karo oo qof kasta oo maankiisa doonaya inuu kobciyo uu wax ka baran karo hadraawi mucjizooyinka uu leeyahay waxa kamid ah da'yar da'dhexe iyo da'weyn isaga oo erey kaliya isticmaalaya ayuu hadraawi haddana nin walba hankii wax ugu sheegi karaa uu fariinta uu gudbinayo isaga oo marnaba aan qalloocinayn si toos ah uu gudbinaya hadraawi waxa lagu xusaa in uu yahay nin Soomaalida mideynteeda fikir mideynteeda daneed nin aad uga soo shaqeeyay in uu yahay hadda abwaanku waxa uu ku nool yahay gobolkii uu ku dhashay magaaladii Burco hadraawi waxa uu aaminsan yahay in uu fanku door weyn uu ka qaato nolosha bini'aadamka Soomaaliduna fankeegu uu yahay fan loo isticmaali karo horumarka isnaashaha isaga oo ku dadaalaya xilli walba ummadda inuu simo waxa uu ummadda ku bogaadinayay in ay ummaddu xaqooga ay u doodaan mar uu ku sugnaa hadraawi dalka Djibouti oo laga wareystay taariikhdiisa faneed waxa uu yiri wax loo doodo uu bini'aadamku u doodo waxa ugu muhiimsan xuquuqda bini'aadamaha maxamed ibraahim warsame hadraawi sanadku markii uu 2012 ahaa waxa uu ku guuleystay abaalmarin gabayada iyo heesaha waxtarka u leh bulshada ee uu sameeyay hadraawi waxa uu ku nool yahay hadda magaaladii uu ku dhashay ee Burco hadraawi waxaan in yaris dul taagaynaa maansooyinkiisa maansada ugu la yaabka badan leh maansadii dabahuwan hadraawi marka la eego fikirkiisa guud waxa la oran karaa hadraawi waxa uu ka mid yahay aabayaasha cilmiga jadiidka ee adoonsiga ka soo horjeeda sameeyay post colonial studieska waxaan lagu raadhaa af Ingiriisiga ayuu ka mid yahay waaye hadraawi si falanqeysan ayuu ga faalooday dib u dhaca Afrikada ay gelinayso cilmiga iyo fikirka reer galbeedku ay u keenayaan isagoo cilmiga reer galbeedka ka faaloonaya waxa uu yiri iskuuladu waa dayeen in damiinimada ay dhigaan dartay uma soo luqoyn duruustu falkay tiqiid xaq bay garbaduubayeen diintay gibil saarayeen waxay dadayeen umuur dhibteedu dib iigu tiil waxay ducfaruurayeen dadaal abid soo taxna xafiisyadu waa duleyn dulmay ka horseediyeen dictatorraday dhalaan dirayska wadkay tolaan dardaaran shishay qabeen dalkay shil u loogayeen dadkay u shireeyeen dardaar weerin meel u tiil harkaha doqonkay tidcaan naftay damac raaciyaan waxbay daba qaadayaan qofkii biyadiid yaqaan darleefiyay ninkay baraa 90 dabeecadood hadday kol ku soo degaan dihaal iyo saar gumeed ma aamino deeq ka weyn inay laba duul dhintaan amadu waa nuxuus suniya dacar bay hayaan daraandariyay hayaan dareen xagatay hayaan talaaqda tusmay hayaan waxay demesh soo rogeen waxay diric raarayaan duraaxad u heesayaan waxa lagu doonayaa waxaanan u daafadhayn waxaan diro lay carree wax soo degay lay cusbee ka dooro intaan lahaa ku sii dar intaan lahaa ku sii dil ayuu lahaa ninkii digashada badnaa waxa weeyi mufakir ka soo horjeeda waxaan la yiraahdo evolutionismka ee uu ninkii Darwin uu ku caan ka baxay fikirka oo dhigaya in la yiraahdo bini'aadamku waxa uu ka soo jeedaa daayarta isagoo taasi ka soo horjeeda isla maansada dabahuwan waxa uu yiri abwaanku sidatan dalaaliya been madow ninkii run ku doonayo abuurtu dumaal miya ma duur iska beerbayba ma baadi dibootayba dawliiliya quusmiya ma buur lagu daalaya ma boogta maqdaa wadnaha ma doonis calool bugtaa ma shay laga daawadaa garaadka qoftayma dhow ma daarweysiduu yidhaa daayeer ninka soo farcamay ma suu u dareemayaa miyaanay dastuur lahayn kitaab iyo diin lahayn miyaan laga sii dambayn sidii daraygii miyaa midhii daraygii miyaa duuduub ku liqyaa ku yidhi nin diiday inaad run tahay ku dooday inaanad jirin rabbow dunidaada bilan dunteeda ma sheegi karo daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn innagu dir kalaynu nahay duudkii nebigaynu nahay deeqdii rabbi baynu nahay xil iyo derejaynu nahay dar loo buriyaynu nahay ka sii daray baynu nahay ilaah ka durkaynu nahay islaam dilan baynu nahay dugaag u dhacaynu nahay ka daatay muskaynu nahay ibliis tidsidaynu nahay doofaarrada aan gudnayn u doortay runtaynu nahay xaqay garbaduubayaan ku diirsanayaynu nahay dilaawaha gaalku dhalay ku dayday ayaynu nahay dayaysan ayaynu nahay waxa uu ka mid yahay dadkii ku dadaalay af Soomaaligu inuu noqdo af cilmiyeysan waxa uu ka mid yahay dadkii qayb libaax ka qaatay ururinta hufnaanta qurxinta iyo tayada af Soomaaliga
hadraawi waxyaabaha shakhsiyadiisa kamida ee dadku ay cajab gelisay waxa kamida hadraawi muddadii uu xidhnaa 5 sano ee qansax dheer uu ku xidhnaa waxa uu galay 5 sanadood uu meeshii uu ku xidhnaa uu nolol jadiid inuu ka bilaabo dadka waxa la wada ogsoon yahay badiga dadka marka la xidho inuu xiritaanku dadka dumiyo laakiin hadraawi xiritaanka uu ku xidhnaa qansax dheer muddada 5 sanadooda fankiisii iyo waxqabadkiisii bini'aadanimo iyo shakhsiyadiisii xilli kastaba ku caan baxday hufnaanta buu tayadiisii soo shacbixi hadraawi waxyaabaha kale lagu xasuusan doono waxa kamid ah dowrka xilli walba dumarka ay ka qaataan bulshada iyo sida xardhan oo xilli walba dumarka maansooyinkiisa ugu amaano waxaan tusaale ahaan soo qaadan karnaa maansadii sirta nolosha mar uu la hadlay gabadhii saaxiibkii ee Zahra isagoo Zahra amaanaya waxa uu yiri hadraawi Sahrayeede sarta hilibka dheexaada samaydaada dherarkaada sara jooga muuqaada sanqaroorka jaahaaga dahab iyo xariir saaran uma baahna saantaa hadraawi filin laga sameeyay taariikh fariidkiisa oo ay ku kulmeen aqoon-yahano badan iyo abwaano badan oo Soomaaliyeed waxa aan ka soo qaadanaynaa waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu hadraawi caan ku yahay eraygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin hadraawi waa gabayaa ay bini'aadanka oo dhami wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah Soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bani'aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bani'aadminimada ah ee uu wax uga tariyey nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo Soomaalida tilmaamihiisa laba qodob oo degdeg ah uga xuso oo aan ahayn midi waa sida uu u yaqaano ama uu ugu tolaado waxa saaxiibnimada la yiraahdo iyo habka uu ugu gaadiido oo ay ku tahay oo macno leh oo uu yaqaan waa midda labaad ee waa halabuurka uu ku soocmay oo gooniya maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabiga lagu yidhaahdo ee fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yiri isla weyn hankeeda wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaar oo lugta webi u geliyee xaguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo optimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaanaa inta uu